wasiir ku-xigeenka xafiiska maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ahna xubin kamid ah guddiga tirakoobka deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Yuusuf Roble oo xafiiskiisa warbaahinta ku siiyay wareysi ayaa wuxuu ka hadlay qorshaha diyaar garowga loogu jiro tirakoobka ka deegaan ahaan halka uu marayo sida la wada ogsoon yahay waxaa 2 bilood ka hor heer qaran lagu aasaasay guddigii tirakoobka oo heer qaran oo inaga ka deegaan ahaan uu mas'alayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax dib ayay ugu soo noqdeen deegaanadii marka waxaa la aasaasay guddigii heer deegaan tirakoobka waxaana shirkudoonka madaxweyne ku-xigeenka mudane Aadan Faarax iyo xubno mas'uuliyiin oo cabinet members ayaa ku jira marka muddadii la aasaasay kadib shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ama hawlihii ugu muhiimsanaa ee la qabto waxaa kamid ahaa kow in la dhaadhiciyo qaab dhismeedka guddiga commissionka oo heer gobol laga aasaasay heer degmo laga aasaasay degmooyinkana lagu amray iyaguna inay ka aasaasaan heer qabale oo ah meeshii tirakoobkii laga sameynayo oo yani bulshadii shacabka ay ku dhaqnaayeen marka tirakoobka guud ee dalku wuxuu bilaami doonaa haddii la yidhaahdo magaabid 30keeda ilaa iyo waxaa la qorsheeyey inuu dhammaato miyaasiya bartankeeda haddii la yidhaahdo marka hawlihii ugu muhiimsanaa ee yani la qabtay guddiyadaasi la aasaasay kasako waxaa hadda lagu jiraa xulashadii dadkii fulin lahaa tirakoobka oo ah dad deegaanka u dhashay oo degmo kastaba tira cayiman ayaa la rabaa inay soo xushaan dadka howlwaladeena u noqon doona tirakoobka oo iskugu jira dadkii tirakoobayaashii iyo dadkii kormeerayaasha ahaa iyo dad aqoonta ICT-ga leh oo degmo kastaba hal xubin oo ICT ah iyo tira cayiman oo tirakoobayaal ah iyo tira cayiman oo kormeerayaal ayaa in la soo xulo qorsheysan oo hadda lagu guda jira waxaa kale oo taa garab socota tababar heer qaran lagu diyaariyay oo 2 xubnood oo ka tirsan deegaanka ay u soo tababaranayaan waa training of trainers waxa la yiraahdo waa tababarka tababarayaasha marka deegaanka si howlahan tirakoobka yani sida ugu haboon loo qabto ayaa waxaa la sameeyay 2 qaybood baa loo kala qaaday deegaankii qayb waa qaybta gobolada xagga koonfurta ah oo xarun looga dhigay magaalada Filtu waa gobolka Daawa degmooyinka gobolka Daawa iyo degmooyinka gobolka Liibaan iyo degmooyinka gobolka Afdheer waxaa xarun tababarada lagu siiyo noqonaysa xilliga tababarada la siinayo dadka howlaha tirakoobka fulinaya waxa weeyaan degmada Filtu sidoo kale wasiir ku-xigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay ahmiyadda tirakoobku leeyahay iyo sidoo kale tirakoobkan wuxuu kaga duwan yahay tirakoobkii ugu dambeeyay ee dalka ka qabsamay 10 sano ka hor maadaama oo hawsha tirakoobka ay aad muhiim ugu tahay howlaha qorshaha horumarineed iyo howlaha yani siyaasadda horumarineed ee dal ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa la rabaa inaynu si gaar ahaan xubnaha maamulada heerar kala duwan jooga inay hawshan xil gaar iska saaraan isla markaana la xaqiijiyo in si tayo loo qabto dadkii sameynayna ay iyagu ka taxadaraya ay dad xilkasa ay ka soo xulaan dhammaan degmooyinka maadaama uu tirakoobku 10 sano hal mar baa la qabanayaa marka qorshayaasha dawladda xagga horumarka xagga maamulka suuban xagga dimuqraadiyadda doorashooyinka wax kasta waxa aasaas u ah in tira sax ah macluumaad sax ah oo ka turjumaya xaaladda dhabta ah ee dadka yani tirada saxda ah ee dadka in la helo ayaa muhiim ah marka waxaan rabaa inaan fariintan si gaar ah ugu gudbiyo maamulada heerar kala duwan iyo bulshooyintaba kala waxa jirta guddiyo laga aasaasay degmooyinka oo qaabilsan abaabulka iyo baraarujinta bulshada xilliga tirakoobka socdo iyagana insha Allah tababar ayaa la siin doonaa marka xubnaha xuduudda shaqaale oo aad u fara badan buu u baahan yahay howlahan tirakoobku marka ka deegaan ahaan xuduudda aan isku haleynayno tirakoobkan insha Allah inay qayb liix ka qaadanaya aan aaminsanahay waxa weeyaan macallimiinta boqolkiiba 50 inay macallimiin noqdaan boqolkiiba 25 shaqaalaha iyadoo loo yaqaan xafiiska beeraha ka shaqeeya boqolkiiba 25 shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya marka waxa shuruudaha muhiimka ee loo baahan yahay waxa weeyaan in qofku shaqaale rasmi ahaado isla markaana nin gudan kara uu yahay shaqadan tirakoobka
xilkasna oo hadhow tole yani mas-uuliyadda weyn ee la saaray ka soo baxaya. tirakoobka dadka iyo guryaha oo 10 sano mar la qabto markana noqonaya markii afraad dalka oo dhan ka bilaami doona 30 bisha Magaabit 2011 ayaa saldhig u ah hanaanka wax qaybsiga deegaamada kala duwan ee Itoobiya ka kooban tahay sida hanaanka kuraasta baarlamaanka federaalka, miisaaniyadaha deegaamada iyo adeegyada horumarineed.